jaamacadda Al-Carabiya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay shir lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay luqadda Carabiga markii ugu horeysay Soomaaliya. Shirkan waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah dawladda, safiirka dawladda Suudaan u jooga Soomaaliya, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed, aqoon-yahano ku xeel dheer luqadda Carabiga, mas'uuliyiin ka socday shirkadda Hormuud iyo Salaam Bank iyo madax ka socotay qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Ujeedka loo sameeyay cilmi baaristan ayaa ah in la dhiirigeliyo dadka sameynaya cilmi baarista luqadda Carabiga iyo in kor loo qaado luqadda Carabiga si aysan hoos ugu dhicin bulshada dhexdeeda. Gudoomiyaha jaamacadda Al-Carabiya Dr. Maxamed Ibrahim Cali ayaa sharaxaad dheeraad ah waxa uu ka bixiyay shirkan lagu soo bandhigayo daraasaadka laga sameeyay luqadda Carabiga. Shirkan maanta halkan ka dhacay wuxuu ku saabsan yahay luqadda Carabiga iyo baaritaan research laga sameeyay luqadda Carabiga hoos u dhaca iyo waxa ay fursadaha waxyaabaha culays ku yimid waxa qaabisay jaamacadda Al-Carabiya waxa loogu talagalay in shirkan laga soo saaro natiijo tusinaysa luqadda Carabiga heerka maanta ay joogto oo waxa ay bulshada iyo mujtamaca Soomaaliyeed meesha ay ka joogto iyo halka ay taagan tahay ayadoo la ogyahay luqadda Carabiga 10 sano ka hor meelaha ay joogtay iyo zamanka hadda aan taaganna meesha inay kala hooseeyaan ayaa waxa safiirka dawladda Suudaan u jooga dalkeena Dr. Kamal Fathur Rahman oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ka qayb galay shirka cilmi baarista luqadda Carabiga ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay in la barto luqadda Carabiga. اللغة العربية اخواني ليست خصما على اللغة الصومالية التي تتحدثون بها، يعني ما في منافسة بين اللغة العربية واللغة الصومالية وإنما هم مكملين لبعض. لكن اللغة الصومالية اخواني هي لغة محدودة في نطاقها وفي عدد الناس المتحدثين بها. ما بتخلي الناس ينطلقوا للعالم الخارجي، بعكس اللغة العربية المحيطة الجغرافي كبير، المتحدثين بها عدد كبير. الآن يا اخواننا إحصائية العالم العربي 450 مليون. وزير الدولة وزارة أوقافta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamuud Macalin Yaxye oo kamid ah mas'uuliyiintii ka hadlay munaasabada ayaa soo dhaweeyay cilmi baaristan lagu sameeyay luqadda Carabiga. luqadda Soomaaliga iyo Carabiga ayaa luqad u ah dalka wax ka soo haray hadda inuu isku dhabayno oo runtii qof walba oo muwaadina ama wax baranayo han noqdo diraasaad culiya ha joogo ama hadda asaasiyaad ka joogo wuxuu ku fikirayo waa luqadda Ingiriiska inuu barto waa la soo dhaweynaya lama diidayo laakiin in la iloobo jaamacadda Al-Carabiya ayaa shirkan ay ku soo bandhigayso luqadda Carabiga waxa uu noqonayaa shirkii ugu horeeyay ee inta la og yahay lagu qabta magaalada Muqdisho oo ah cilmi baaris laga sameynayo luqadda Carabiga oo ah luqadda labaad ee dalkeena muhiimna u ah barashada diinta Islaamka. Liibaan Cabdi Cabdo warbaahinta qaranka Muqdisho.